السلام عليكم أصحابتي إذا كسر دواد كان كينا ما أنت وحندين وذاويل كيراء عيلك كل عاي إن لو نرى بالنا هاي والله ما كحمة هاي إنكستو كل نفس دقة الموت بو إلى هاي يري إن مركا ويلكا يرشان مع الموت بكتيري يهونا دودي مركا سيدا لو سبت بادية كنت كلو صاري مركي أمبلاست سيدا لو صاري كدب بنفتي كدعادة سووا اللي عسبتار كل جينين dad badan baa soo baxay shacab badan baa ka soo qayb galay si ilmaha yar meesha lagu soo badbaadiyo hase ahaatee aduu dadaal dheer kadib ambalaasyo cagafyo wiishash elektarooni oo dhan kamarad online ah wax walba meesha waa la keenay sidii nafta loo badbaadiyo balse naf walba meesha u dhimanayso Ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala adugu wataa shacabka badan bas ku soo baxay telefoonay wataan hooyadii iyo aabihii godka waa la keenay si ay markiiba ay u qabtaan gacmahooda ay ugu qabtaan markiiba ay u saaraan oo dhahaan wiilkayga waa kan wal soo badbaadiyay balse waa ay noqon weyday Ilaahay subxaanahu wa tacaala intaas naftiisii ay ku ekeyd inuu dunida si joogo dunida bay ku ekeyd marka insha Allah naf walba maalin bay dhimanaysaa sida aan u daawanayo ay nimankaas inkaayaga wadaas u soo fadhiyaan baan soo daawanay shalay oo dhan waa murugeysnaa qad ma soo galin godkii wakaas si wacan baa loo galay si wacan baa loo soo badbaadiyay dadaal dheer kadib elektaroonig baa la keenay qalabyaa lagu xiray dadkii khibrad lahaa oo dhan baa meesha la keenay caalamka dhan baa laga daawanayaa TV-gii live buu noqday walaalayaalow waa u jeedaan caadi idinkama saarna wiilkaaga markii sidaa loo soo badbaadiyay isagoo nool oo nafta ku jirto horta way ku guuleysteen balse tii rabbi baa noqon inuu sii noolaado marka tiisi baa dhamaatay baan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto waalidkana samarka ah ka siiyo dadkeena Soomaaliyeed sida ilmaha loo badbaadinayo wakaas waa u nool yahay waa u dhaqaaqayaa laakiin dadkeena Soomaaliya naftu wax wala ma ahaan filayaan ilmaha ceel ku dhacay ilmaha intii la dhalo baa intii la baqtiyo oo gambo lagu ciijiyo ama gacan lagu ciijiyo baa kombol iska surdayaayo tooxooyinka lagu soo tuuraya ilmihii caalamka ka mid ahaaye carab ahaana wakaas sidaas oo dhan baa loo badbaadinaya wakaa carab iyo gaalaba ilmahooda way haystaan Soomaali mooyaane waxa ilmaha dila Soomaali baa la arkay xaadir baan ahayn kuwo intii kombo lagu soo riday la soo tuuray koodaas dambi walba waa gashay marka Soomaaliya waa lagu baaba'san yahay waa lagu hoogsan yahay waa lagu halaagsan yahay waxaan leeyahay sanadkii tagay wixii dhacay waa la wada socotaan kuwa yiri awlaad ma dhalin wakaas ma aragtaan sidaas adu waa sawir laga sameeyay weeyaan sida loo badbaadiyay meesha oxygen laga soo xiray waa sawir laga sameeyay weeyaan sida ilmaha yar si walba inuu badbaado si walba waa geed walba waa loo fuulay Allah subxaanahu wa tacaala intaasuu ka dhigay inuu intaan sameeyo noolaado wata ambalaas lagu kaxeeyay waa asagay ilmihii yaraa hooyadii aabihii iyo dhaqaatiirtii qaar ka mid ah hase noqotay bini'aadan xumaad ma nooleyn karo waxna ma dili karo Allah subxaanahu wa tacaala ayaa dila nooleeyana marka inna loo narjun baan leeyahay Ilaahay naxariis janna ka waraabiyo anaga ana samir hanaga siiyo intii daawanayay intii dhashay intii familkooda ahaydba intaba marka asxaabta qaali waxaan leeyahay soo dhawaada idilay muruga iyo ciil weeyaan inaguna waxaan leenahay wallahi waa wareer weeyaan inaguna waxaan leenahay muxuu yahay ilmahan ma dhalin ma rabo dilba waa garac haduu yahay adiga dhigtay soo maaha adiga dhigtay 9 bilood ba soo waday marka dhashayna waayba u tuurasaa ilmaha aabihii waa garanaysaa magaciisa saddexan qabiilkiisa inta yaru qodbasiraha uu ku dhashay baa diidaysaa marka ilmahaas inaad dambi kale sii gashid horta dambiga sinadaha waad gashay laakiin dambi kale oo dila inaad sii gashatid dhiigaas waliga ka hari maayo ama xaj aad ama meel kale aad ka hari maayo Soomaali iyo naftu waxa lama ahan walaalayaal aynu ilmaheena badbaadsano aynu dadkeena iyo dalkeena aynu badbaadsano sida ilmaha yar loo badbaadinayo hadda bal eegbal waxaad moodaa in qoomiyad dhan la badbaadinayo aad moodaayo la family dhan deeyo
waa caruur iyo ciroole iyo aabiyo eedi iyo habre iyo abti aduu dee qoom dhan in la badbaadinayaa muddaa waa ilmaha yar halkaa ku jira marka qiimaha ay leeyihiin nafta uun bay garanayaan dadkani laakiin inagu Soomaali ahaan garan mayno qiimaha aynu leenahay iyo qiimaha ilmuhu leeyihiin midna garan maayaan marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaynu xaqa allana tuso oo aan xaqa aan garanno oo ilmaheena nafteena aan badbaadino waka dadkaas oo dhan dadna waa daawadayaal dadna waa hawlkar intaba way isku jiraan banaankaas weeyaan walaalayaal marka wakaasa dadkaas oo dhan baa jooga waa aad iyo aad baa ilmaha yar lagu hanweyn yahay inuu isagoo nool la soo saaro oo la daweeyo balse nasiib xumo wakaasa waa arta inuu dhaqaaqayo oo uu nool yahay waa arkasaan balse therapy baan teeni weynu sameynay inuu bini'aadan hadaynu nahay laakiin Allah subhanahu wa ta'ala laakiin Rabbi subhanahu wa ta'ala ma yeelin oo ilmaha yar naftiisa intaas ay ku akayd laakiin way ka rajo qabeen hooyadii iyo aabihii iyo dhammaan shacbiyada daawanaysa inuu noolaado oo soo baxo oo hadhowda taariikh adduunka gasha ay noqoto ilaan bini'aadamkii taariikh ka carratay ilmaha yar waxaan leeyahay Rabbi subhanahu wa ta'ala waalidkiisa samir ka siiyo iyo dhammaan ehelkii iyo qaraabadii waa ku cibra qaadasho weyn weeyaan waxaan rajeynayaa inay sidaa noqdo Soomaali ay dadkeeda difaacato awlaadeeda aysan ku takarfalin baan ka codsanayaa wakaa sawirkaas weeyaan laga sameeyay qaabka loo badbaadinayo ilmaha yarka asxaabta qaar soo dhawaada ay leenahay haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar muuqaalka like garee si uu meel dhan noo gaadho inay loo neerajuun Allah subhanahu wa ta'ala samir hana siiyo